Mareykanka ayaa isaguna weerar aad u culus waxa uu ku qaaday waxay ugu yeedheen saldhig kale oo ciidan oo ay leedahay kooxaha ay taageerto Iran. qaybta saddexaad wararka calaad ee candana seeda dowladda Mareykanka madaxeeda maaliyadda ama xogayaha maaliyadda haweeneyda Janet Yellen ayaa shir la yeelatay agaasinka guud ee isku daaban ee golaha ganacsatada dalka Mareykanka National Association for the Business Economics loo soo gaabiyo NAPEC kaasoo kulankoodii 39aad ee sanadlaha ahaa ku qabsaday magaalada Washington DC markii ugu horeysay ayay sheegtay inay u muuqato in la dabciyay hanaanka ilaalinta sharciyada bankiyada taasoo ay sheegtay in dib loogu noqon doono isla markaana lagu dhuuji doono mar kale in si dadka Mareykanka ah ee bangiyada lacagu u yeelan loo hubiyo badqabkooda lala xisaabtamo dhawaan ayaa anfariir weyn iyo gariir ka dhacay bangiyada dalka Mareykanka kadib markii dad badan ay bangiyada lacagta kala baxeen qaarkoodna ay door bideen inay gurigooda ku kaydsadaan halka kuwa kalena ay bangiyada inta lacagta kala baxeen ay geysteen meelo kale waxaana ay sheegtay in hanaanka dib loogu noqon doono taasoo la dhuujiyay sanadkii 2018 laakiin u muuqda in laga weecday 73 jir muslim ah oo ka soo baxay masaajid ku yaala Birmingham xaafadda leerada King Heath ayaa la sheegay in weerar ay ku qaadeen koox qowleysata oo masaajidka hortiisa ku sugayay iyadoo la sheegay ninka waayeelka odayga oo masaajidka ka soo lugeynayay una sii jeeday hooygiisa weerar ay ku qaadeen koox ku sugaysay gaari agti kaamarooyinka dhinaca dhacdooyinka duube ee CCTV-ga ayaa laga arkayay iyadoo qofkan ay weerar ku qaadeen koox u ekad inay meesha ku sugayeen waxaana la arkayay iyadoo ninkan waayeelka uu afka goostay dabadeedna ay dhibaato aad xoogan u geysteen dhiiggiisa ayaa dhig ka burqanayay kolkii la arkay muuqaal laga argagaxay oo baraha bulshada soo dhigay isagoo sidoo kalena la xaqiijiyay inuu gacan ka jabay booliiska ayaa sheegay inay baaritaan guri ilaa guri ah ay ka geysteen aagga sida uu sheegaya taliyaha ereyadaasi Sergeant Chris Gallan oo asagu deegaanka Mosley Kings and Heath ee ka tirsan magaalada Birmingham wararka ayaa sheegaya in ninkan waayeelka haatan la dabiibaya booliiska ayaa sheegay in ay isku dayeen in kooxda weerarka soo qaban qaabisay la ogaado kooxda ayaa weekadin ninka waayeelka meesha ay ka dhursugayeen 73 jirkan ayaa loo maleynayaa in muslim nacayb kaliya u eersaday 9 qof oo ciidanka Mareykanka gaar ahaan kuwa lagu dhaato ee cutubka 101 ciidanka cirka Airborne Division loo yaqaano ayaa diyaarad kula gudoontay gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka sida ay sheegayaan booliiska gobolkaasi Kentucky wararka ayaa sheegaya in ay diyaaraddu ay ka soo kacday ama ay ku dhaweyd aaga qalcadda loo yaqaano Fort Campbell Military Base ee dalkaasi Mareykanka ka hor intaysan burburin wararka ayaa sheegay in 9 kamid ah saraakiisha Mareykanka ee diyaaradda saarnaa ay burbureen diyaaradan oo nooceeda ahayd kuwii tii ku caabaxday howlgalkii magaalada Muqdisho la isku haleelay sanadihii 90maadkii ee Black Hawk ayaa wararku sheegayaan in weli baadi goob rasmi ah loogu jiro in la helo nooca diyaaradan oo iyadu ahayd ayaa si kastaba noqotee wararka qaarkood ayaa sheegaya in diyaaraduhu ay hayaan laba oo isku dhacay xilli ay ku jireen markaasi ayaa la yiri tababar caadi ah oo joogto ah oo ciidamadu ay sameeyaan militariga war qoraal ay soo saareen Mareykanka ayay sheegeen inay ka argagaxeen waxay ugu yeereen lubintan dadkan faraha badan halkaas ku dhintay saraakiisha waxayna sheegeen haatan inay ku mashquulsan yihiin sidii ay uga taxadari lahaayeen qoysaskii ay yiraahdeen ay ka baxeen saraakiishu iyo sidoo kale wixii lagu yeeray kuwa dhaawaca dabibistooda wariye asagana leeyahay Evan Grankoff oo ka tirsan warbaahinta afka dheer ee wargeyska leeyahay Wall Street Journal ee dalka Mareykanka oo ahaa wakiilkoodii dalka Ruushka ayaa dowladda dalkaasi Russia la sheegay inay si qafaalasho ay ugu xidheen magaalada Yekaterinburg oo iyadu ilaa iyo 1600 oo kilomitir ama 1000 mayl dhinaca bari ka xigta magaalada caasimadda ee Moscow wararka ayaa sheegaya in ninkan uu sameeyay dhaqdhaqaaqyo basaasid ah weerarnimada ku dhex qariyay taasoo lagu tilmaamay in ay ka shakiyeen qaar kamid ah waaxda dabagalka laakiinse ilaa hadda lama cadeynin cidda sida dhabta u aftuubatay wararka ayaa sheegaya in darawalkiisu maqaaxi cuntaa uu ku dajiyay halkaas oo uu shaqo u joogay mid kamid ah dadka aadka u yaqaan lana soo shaqeeyay oo ah wakiilka BBC-da ee Ruushka oo leeyahay Stephen Rosbeck ayaa ku tilmaamay wariyahaasi inuu ahaa nin aad u ilaaliya qiyamka warbaahinta iyo sidoo kale anshaxa isla markaana uusan garanaynin waxa uu kasbaday xaqiiqada arrimaha dibadda dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa cambaareeyay qafaalashada wariyahaasi wuxuuna sheegay in loo diiday ilaa darta dowladda Mareykanka inay wariyaha la xiriiraan kadib markay dhacdada ogaadeen waxaa goor sii horeysay Wall Street Journal uu sheegay inay u qabteen qareen u dooda kaasoo ka badbaadiya wixii dambiye loo haysto iyadoo oo weli ay sii socoto hanaanka isballaarinta dhinaca dhaqaalaha iyo la soo bixista ujeedooyinka waaweyn ee ballaaran ee Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud
ee dhinaca hagaajinta dhaqaalaha ee wadanka amiirka dalkaasi Saudi Arabia ahna ra'iisul wasaaraha dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa waxaa gabadha dalka boqortooyada Sacuudiga u fadhida magaalada Washington DC Rima bintu Bandar waxa ay amaantay hanaanka 2030 vision loo yaqaano ee u soo bandhigay Mr. bin Salman waxa ay ku tilmaantay in uu aad iyo aad u yahay hanaan caawiyay da'yarta isagoo oo mideeyay ayay tiri mabaadi'da da'yarta waxayna sheegtay in iyadoo boqortooyada 70% dadkeedu yihiin da'yar markii ugu horeysay ay ku sisiqayaan inay hantida gacanta iyagoo ku dhigaan kaliyana aan laga qayb gelin ayay tiri hanaanka dawladnimada laakiin sidoo kale lagu ballaariyay oo wax laga siiyay ayay tiri hanaanka ganacsiyada gaarka loo leeyahay iyadoo sheegtay in qarniga 11aad wadankeedu uu taariikh cusub hoosta ka xariiqayo waxa ay sheegtay in dadka hoosta in laga soo dhiso isla markaana hanti ma guurta ay yeeshaan da'yartu ay tahay aragtida 2030 vision ay ku tilmaantay inay tahay fursad goob Rima waxay intaas ku dartay inay sii wadi doonto iyadoo ka hadlaysay hanaanka dhinaca maalgashiga oo ka dhacay magaalada Miami ee gobolka Florida dalka Mareykanka ayay sheegtay in dawladeedu ay wali sii wadi doonto inay fursadda ay ka dhigto mid loo siman yahay Mareykanka ayaa isaguna weerar aad culus waxa uu ku qaaday waxay ugu yeedheen saldhig kale oo ciidan oo ay leedahay kooxaha ay taageerto Iran wararka ayaa sheegay halkaas in 8 qof lagu dilay oo aan ka tirsanayn ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran laakiin kuwa ay tababareen markaan iyaga wakiil u ahaa afayeenka waaxda Pentagon-ka dalka Mareykanka Brigadier General Pat Ryder ayaa warfidiyeenada kula hadlay xarunta Pentagon isagoo oo sheegay in weerarku uu ahaa in laga celiyo jawaab waxa uu ugu yeeray mid ka yimid dhinaca Iran oo ku saabsanaa kolkii ay diyaarado drones oo nooca suicide-ka loo yaqaan ayagu isqarxiya ay u soo dirtay eega dagaalada waxa uu sheegay in ay dhibaatadan ay timid kadib markii ciidamada Mareykanku ay bari ugu dameeyay oo dhan ay la kulmayeen weeraro taasoo ay markii dambe uu ku dhacay xanuunka loo yaqaan xanuunka dhinaca maskaxda ku dhacay ka dhasha markaas naxdinta ama waxa loo yaqaan traumatic brain injuries TBI waxaana uu sheegay in 6 kamid ah askarta Mareykanku ay markale ay markaasi ay khafiifeen ama ay markaasi ay waasheen amal isla markaana ay tani ahayd jawaab celin degdeg ah oo laga bixinay arintaas CENTCOM saldhigga dhexe dalka Mareykanka ugu leeyahay bariga dhexe ayaa sheegay in ay weeraradan iyo weerar celisku sii socday ilaa bishan 24keedii taasoo ay ku tilmaameen wali inay dhinacyadu isdilayaan 19 dagaalyahanna ayaa hore loo dilay laba qof oo Mareykan ayaa midna dhintay midna dhaawacmay halka dhaawac kale oo Mareykan isaga la soo tabinayay wararka oo dhan ayaa waxay tabinayaan in labada dal hadeerto ay u muuqdaan kuwo iyagu markaasi ciyaalka iska leynaya oo loola jeedo in ay qolaba ay dilayso markaasi qolyaha kale ee markaasi cilaaqaadka leh dagaalka qabow ee labada dhinac ka dhaxeeya ayaa dadka qaarkood waxay ka baqayaan inuu marka ugu dambaysa gacan uu dhigmeed isku bedelo dabadeedna waxa laga qaban kari waayo ninkii isaguna sameeyay telefoonada guryaha la dhigto ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay sida ay dadka qaarkood ay wali dhibaato ugu qabaan telefoonka Martin Cooper oo loo yaqaano aabihii telefoonada ahaana qaar kamid ah telefoonada gacanta ninkii sameeyay ayaa sheegay inuusan asagu telefoonada gacanta aad u isticmaalin wuxuuna ku tilmaamay in dadka Mareykanka uu ku dhacay xanuun iyo dadweynaha adduunka telefoonka isagoo sheegay sababta telefoonadu mar walba u xumaadaan dadkana dhaqaalaha faraha badan oo uga baxo uu tahay isticmaalka faraha badan 94 jirkan waa yeelka 50 sanadood ka hor bilaabay hanaanka sameynta telefoonada kala duwan oo degan magaalada Delmar ee gobolka California dalka Mareykanka ayaa yiri waxyaalaha igu mucjisada badan waxa weeye ayuu waxa arkaysa qof dhalinyaro ah oo telefoon isticmaalaya dabadeedna wada ka gudbaya qaarkood waxaan u maleynayaa ayuu jidka ayay gaariga kula dhacayaan ama qaarkood ayaa ku dhacaya wuxuuna sheegay inay mar walba haddana ka fekeraan telefoonkii istaagay telefoonkii xumaaday wuxuuna sheegay in cilada ugu weyn ee telefoonka aad ku arki kartaa ay tahay maadaama aad u isticmaashay in uu ka xumaado qaybta saddexaad wararka wacala dhinaca dibadda inta ku joojiyo afraad iyo daqiiqayn